عليكم waxaan kamid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha kuna xiran barnaamijkan qeyr Allah ku siiyo cilmigaaga cimrigaaga Allah ku barakeeyo sheekh waxaan rabaa inaan dhawaan guursado gabar Soomaaliyeed laakiin mushkiladu waxa ay ka taagan tahay dhanka meherka waxay leedahay lagu meheriyo 400 gram oo dahab ah anna waan diiday oo ma awoodo mana wanaagsana ayaan ku iri balse waxay igu jawaabtay waxaan rabaa in la yiraahdo inay hibil dahab inta leeg ayaa lagu meheriyay oo reerkayga aan ku sharfo meherka kadib aan ka dhaafo wixii aad awoodana aan ku sameeyo sheekh maxay diinta islaamku ka qabtaa arrinka hadii aan sameeyo hadii haya aan iraado hadhowday balanta iiga baxdo maxaa igu waajiba jazaakumullahu khayr alxamdulillah axmed mas'aladan marka koobaad in meherka qaali laga dhigo waa arrin ana shariicadu ogolayn way waxa la iska reebay عن المغالاة في المهور عمر واكي ريبي جري رضي الله عنه وارضاه ميرك قال لغا دغو نبينا waxa xadiid xasan kaga timid inuu yiri haweenka waxa uu khayr badan ay saruhuna maunatan haweenkana barakada qoyska waxa kamida taysiru khitbatiha wa taysiru sadaqiha meherkana in la fududeeyo isweydiisana la fududeeyo lagu adkeyn waxa xumaha iyo gogol dhaafka iyo dhalinyarada ku badiyayna waa meherka iyo guurkan qaaliga laga dhigayo sadarta taasi ma saxna marka labaad hadii uu ninkan yeelo waxa ku waajibaya intii lagu meheriyay ee dadka loo sheegay iyada xaq waxa ballan qaaday inay ballanta inay fuliso diyaanatan baa lagu yeelanayaa diin ahaan laakiin qadaya xukun ahaan maaha hadii ballanta uga baxdo 400 gram ama wixii uu ku meheriyay baa lagu yeelanayaa sadarta waxaan dhihi lahaa arinta hayeeli culimadu tan waa ballan qaad bay waxay ka hadlaan laba jeer hadii gabadha la meheriyo mid hoos loo soo meheriyo dad kooban ay og yihiin oo meher yar loo magacaabo haddana meel fagaara alla keeno meher kale inta lagu celiyo mid kale dadka loo sheego sidan oo kale istutuska iyo faanka oo kaleeta ka dambe dadka fagaaraha looga sheegay baa waajibi way kan dadku marxaati ka yihiin kanana la soo bandhigay qofkuna isaga yiri waan aqbalay isagoo soo waan aqbalay marisa haduu yiri waan aqbalay wajaba calayhi hadii laga cafiyana nasiib hadii laga cafin waayna de xoolaha 400 gram oo dahab ah waa xoolo ku dhow 4-5 jeer inay ka galaan oo 80 gram dahab wuxuu ku soo galo 4 jeer iyo takalo 60 oo 25 ka dhimantay 5 jeer xoolo zaka gooya way arintaas oo kale gabdhaha iyo ragga iyo qoysaska gabdhuhu ka dhasheenba in dadka laga daayaa haboon oo guurkii lagu adkaynin daayartii hadii kale wiil iyo gabadh baa guur la'aanta badanaysa billahi tawfiiq soo meheriyo dad kooban ay og yihiin oo meher yar loo magacaabo haddana meel fagaara alla keeno meher kale inta lagu celiyo mid kale dadka loo sheego sidan oo kale istutuska iyo faanka oo kaleeta ka dambe dadka fagaaraha looga sheegay baa waajibi way kan dadku marxaati ka yihiin kanana la soo bandhigay qofkuna isaga yiri waan aqbalay isagoo soo waan aqbalay marisa haduu yiri waan aqbalay wajaba calayhi hadii laga cafo wixii aad awoodana aan ku sameeyo sheekh maxay diinta islaamku ka qabtaa arrinka hadii aan sameeyo hadii haya aan iraado hadhowday balanta iiga baxdo maxaa igu waajiba jazaakumullahu khayr alxamdulillah axmed mas'aladan marka koobaad in meherka qaali laga dhigo waa arrin ana shariicadu ogolayn way waxa la iska reebay عن المغالاة في المهور عمر واكي ريبي جري رضي الله عنه وارضاه ميرك قال لغا دغو نبينا waxa xadiid xasan kaga timid inuu yiri haweenka waxa uu khayr badan ay saruhuna maunatan haweenkana barakada qoyska waxa kamida taysiru khitbatiha wa taysiru sadaqiha meherkana in la fududeeyo isweydiisana la fududeeyo lagu adkeyn waxa xumaha iyo gogol dhaafka iyo dhalinyarada ku badiyayna waa meherka iyo guurkan qaaliga laga dhigayo sadarta taasi ma saxna عليكم waxaan kamid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha kuna xiran barnaamijkan qeyr Allah ku siiyo cilmigaaga cimrigaaga Allah ku barakeeyo sheekh waxaan rabaa inaan dhawaan guursado gabar Soomaaliyeed laakiin mushkiladu waxa ay ka taagan tahay dhanka meherka waxay leedahay lagu meheriyo 400 gram oo dahab ah anna waan diiday oo ma awoodo mana wanaagsana ayaan ku iri balse waxay igu jawaabtay waxaan rabaa in la yiraahdo inay hibil dahab inta leeg ayaa lagu meheriyay oo reerkayga aan ku sharfo meherka kadib aan ka labaad hadii uu ninkan yeelo
waxaa ku waajibaya intii lagu meheriyey ee dadka loo sheegay iyada xaqa wixii ballan qaaday dee ballanta inay fuliso diyaanatan baa lagu yeelanayaa diin ahaan laakiin qada iyo xukun ahaan maaha haddii hadhow ballanta uga baxdo 400 garaam ama wixii uu ku meheriyey baa lagu yeelanayaa saa darteed waxaan dhihi lahaa arrintaa ha yeelin culimmadu tan waa ballanqaad waxay ka hadlaan 2 jeer haddii gabadha la meheriyo mid hoos loo